بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waa salaamantihiin aada aan kaga mahad celinaa wareysigiin iyo sidii dadka soo shaqeeyay oo taxgelisay muddo badan aan wada shaqeynayna ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay Ramadaan Kariim intii dhimatay oo Ramadaanka dhimatay oo gacan ka xaq daran dishay iyo intii kale oo dhimatay ba Ilaahay naxariista jannaha siiyo maanta u jeednaa magaalada Muqdisho meesha ay marayso iyo meesha shalay xilligii Sheekh Shariif uu madaxweynaha laga keenay gobolkan habeen kasta waxaa la dilaa 10 6 7 8 boqolkii wax yar ka dhiman dadka hadda la dilay waxaan aad uga xumahay nimanka nabadiidka inay dadka dilaan haddana ciidamadii dawladana ay dadka dilaan wiilkeero bajaajka wado 22 jirka oo 3 bari ka hor la dilay kiisaakay la dilo dhahay minishibiya dishay dadka gobolkan markii yaa maciin u ah haddii labadii dhinacba la dilaayo dhinac ay u fakadaan aysan lahayn meel ay u dacwadaan aysan lahayn yaa maciin u ah midda kale dadka deegaanka degan ee waxgaradka ama siyaasiyiinta ama ganacsatada kama hadlaan dhibaatada shacabkooda haysato waxaan isleeyahay ma u danqadaan dadkooda waxay fiirsadaan kuraastooda kuwana waxay fiirsadaan ganacsigooda waxay isleeyahay hadaa ka hadashay midda dawladda wax idin dhimayso haddii laga hadlo dhibaatooyinka dadka gobolka Banaadir degan haysto dawladda hadalkaas wax taray dawladday kaabaysaa waxyaabo dawladda ka maqan waay ma aha dawladda in la nacib yahay hadii runta la sheego waa in loo hiiliyaa shacabkan waa in dhibaatada haysata shacabkan laga hadlaa dawladda anficay sababtoo ah dawladda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hoos uma oga dadkan dhibaatada haysata ee gobolka Banaadir dhibaatada ku dhacaysa gobolka Banaadir gudoomiyaha mas'uulka ah gudoomiyaal 17 degmo xukuma isla xisaabtan ma jirto hadii la xisaabtami lahayd degmadii ra'iisul wasaaraha hore u yiri degmadii wax lagu dilo waxaan ka qabanaynaa ama gudoomiyaheedan bedeleena ilaa hadda gudoomiye wax laga qabto ama gudoomiye la bedelo ama taliye saldhig la bedelo ama taliye nabasugid la bedelo gobolkan ma jirto marka warkii hore oo waxaan ka qabanaynaa inay waxba ka jirin waxa cadaanayso dilka magaalada Muqdisho aan qof ka hadlaynin qof u taxsiyeynaysa xitaa ma jirto qof walba qof ay ka cararay hadda gudoomiyaha gobolka shirka amnigu ka qayb galaa muxuu shir amni uga qayb galaa nin gurigiisa nadiif yahay guri kale ka qayb gali karo madaxweynayaasha meesha iskugu yimaadeen waa madaxweyne maamul goboleedyadooda nabad ay ka jirto waay hadda u badato Puntland marmar qof lagu dilaa idan wax iska caadi waa qof waay laakiin waxaan oo habeen kasta 10 iyo 20 iyo 30 la dilaayo gobol qowm ma jirto nin gobolkiisa nadiif yahana gobol kale la fadhiisto canshuurta magaaladan laga qaado waa ogtiin ra'iisul afkiis wuxuu 43 milyan ka qaadna dadka 43 milyan laga qaaday ee gobolkan u dhashay ee gobolkan ku ganacsado canshuurtoodii maxaa loogu qabtaa waay amni ma haystaan wado qurux badan ma haystaan isbitaalo free ma haystaan isbitaaladoodii waxa haysto waa aragteen Turkiga iyo Balaayo ku shaqeysanayso iskoola ma haystaan iskooladoodii qaar dadaaba la siiyay shakhsiyaad ganacsataa la siiyay oo almanhal alhebel taariikhdii soo jireenka xitaa Soomaalida lahayd waa lala diriray waxyaabo aan aqoonina la keenay marka gudoomiyaha gobolka horta marka hore wasiirka arrimaha gudaha ha ka hadlo dadkiisa dhibaatada hayso gudoomiyuhu xukuma gudoomiyaha la xisaabtamo maxaa qabata hal dhoo laakiin canshuuran qaadanayna dadkii bajaajka wata waa la dilaa askariya dilaayo kii kale nabadiida dilaayo canshuurtooda dadkan maxaa loogu qabtay maamul goboleedyada kale canshuurahooda ayaga lagu celiyaa tanna waxay ka qaataan dada hoteelo degan aan dalka iyo dadka waxba u qabaneen aan maalin ka hadleen dadkan la dilaayo ee muruqmaalka xitaa waa la dilaa dadka oo masaakiinta gaargacanada wata waa la dilaa cid ay u qoran yihiin iyo cid kale ma leh lacagteena bas la dhahaa lacagtii wax loogu qabtaa waay shacabkan waxaan dhihi lahay aniga gobolka Banaadir degan canshuurtiina diida canshuurtiina la idinku dilaa waxa la idinku haysta canshuurtiina waay dhibaatada waxa idinku ugu dhacaysa canshuurtiina waay waa aragteen ciidamada hadda jidadka taagan waxay ku afuraan xitaa ma haystaan askari 20 sano jiro oo hooyadii soo korisay ay baahan tahay oo caruurtiisa ay baahan yihiin oo guri kira degan muxuu awoodaa amni waxba kama qaban karo marka waxaan leeyahay in gudoomiyaha gobolka ama isbedel ha keeno oo gobolkan Banaadir ha u shaqeeyo yuus waxba shirka qayb gali macna ma yeelanayso madax la ag fadhiista madaxda goboladooda ka soo shaqeysatay gobolkiisa uu dayacaya muxuu la shirtagay muxuu hayaa dadkiisii oo la dilaayo bajaajleedii la dilaayo masaakiinta garab rartada la dilaayo haddana canshuur baad laga qaaday waxba isma dhaanto waa baad waay haddaan waxba dadkii loogu qabaneen marka waxaan leeyahay gudoomiye
haddii arrintan gobolka banaadir wax ka qaban weysay waxaa kuu sharaf roon intaan xilka lagaa qaadin inaa is-casishid aniga xil kama rabo gobolkan hore uga soo qabtay waqti qiimo badan oo sharaf badan oo gudoomiye qiimo badan uu joogo oo 17 degmo isku xiran yihiin ka soo shaqeey laakiin waxaan u damqanayaa waa dadkayga iyo deegaankayga iyo dhibaatada dadkayga haysata waxaan u danqanayaa oo maanta iga hadashiinayo waxaan rabaa xildhibaanadii dadkan shacabkan gobolka banaadir u soo dhaartay ama galmudug ha ka soo galaan ama gobolka banaadir ha ka soo galaane ama hirshabelle ha ka yimaadiin inay dadkooda u danqadaan waryaa dadkan u maqan waa aragteen markuu dhalxa hadlay waxaa ka daba hadlay xidigaa ka daba hadlay asoo dadkiisa iyo dalkiisa difaacayo ka daba hadlay maxaa diiday ayaga ay u gabanayaan maxaa diiday kulli ganacsato waxay diidayaan ganacsigooda iyo diyaaraday leeyihiin inay dawladdu ku qabsatay diidayaan waryaa xukumaysiin dadka idin soo doorto waa dadka lagu maadayo canshuurtooda inta laga qaato la dilayo yaa biri ka maalin xukumaysiin insha Allah waxay imaan doontaa nin iyo coday imaan doontaa yaa dalkan anfacay imaan doontaa yaa shacabkan dulman ee la dilayo ee meedadkooda jidadka yaal wax u qaban doonay anfici doontaa aniga waxaan jeclahay midnimada Soomaaliya jeclahay Soomaaliya ha israacdo gobolka banaadirna insha Allah waxaan rajaynayaa markaan mar ka fiican oo madaxweyne maamul goboleed leeyahay oo maamul goboleedyada kale oo ag fadhiisan kara inay timaado laakiin dadka gobolkan way jiifaan dal ha jiraan dibad ha jiraan dadka waxaan dhihi lahaa jiifka ka kaca hurdaayatiin horaa u hurudeen mar labaad hurudeen mar saddexaad hurudeen dadkiina badbaadiya